السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتنا كحرن channel كنا دمانتي سو dhawaada saaxiibayaal caawiya abdeedidii ugu dambeeyay ama qodobada marka ugu xisaab badan iyo video aan rabno marka inaan soo qaadano oo arin marka mucjiso laftigeedu ah iyo xaalad isku cakran. waa video ama qodobkeena aan ku soo qaadanayno uu yahay waa ninkii Cali Daacun ahaa oo ay ognayn marka inuu yahay nin ka soo jeeda beeshii Maxamuud Harti. Cali Daacun waa nin siyaasiya taariikh badan ayaa uu ku leeyahay doorashooyinkii markaa iyo shirarkii intii badan muddadii hadda la soo dhaafay ama 12 sano ee markaa la soo dhaafayba Soomaaliya dib u dhiska dowladnimo loogu sameeyay. waa nin siyaasadiisa iyo aragtidiisa ka hadla cidna taa markaa laguma qabsado ama qofna laguma qabsan karo maxay fikradaadu u tahay noocaas. nin Cali Daacun xaqiiqda ayuu ka hadlay iyo hawsha markaa ka socota maamulkii waqooyi bari iyo afduubka iyo xoogga markaa meesha ka taagan oo uu runta ka sheegay iyo in Xasan Sheekh Maxamuud markaa uu dadkii adeegsanayo oo ninka Firdhiye la dhaho awalna ahaa nin shaqaynaya xisbiga kulmiye iyo Muuse Biixi maantana ah markaa nin ku xiran oo u shaqaynaya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu taagan waa inaynu Xasan Sheekh Maxamuud kaliya markaa raali gelnaa dadkii kalena markaa awood loo isticmaalaa oo xabad loo isticmaalaa waa haddii ay markaa uga soo galayso ilaan meesha ninka awood badan ma jirto haddii sharciga aan laga tallaabsanin oo aan systemka lagu dhaqmayn dee xaaladdu markaa way halaabaysaa uun ayaa uu runta ka sheegay Cali Daacun oo waxa uu taagan yahay war meeshii waxa ka socda xaq maahan ama wax wanaagsan maahan boob iyo dhac iyo xaq darro ayaa ka socota iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo meeshii markaa ku galgashay oo baabi'iyey. waxaa dhacday markaa bogogii ku hadlayay afka maamulkii hore markaa loo oran jiray SSC Khaatume State iyo meelo badan oo kale ayaa ninkii Cali Daacun ahaa dagaal looga soo qaaday. waa sida hadda qoraalkan aynu halkaa uga jeedno iyo page-ka soo dhajiyay waxa halkaas ka muuqata marka oo Cali Daacun la rabaa dacaayad ah in markaa loo geliyo suuqa. Cali Daacun Cabdiraxmaan Ciro ayaa markaa heshiis la soo galay oo maamulkii waqooyi bari wuxuu u yimidba ama hawshiisu ay tahay inuu burburiyo oo uu markaa ka soo horjeesto. bal caqli xumada dadka haysata Cali Daacun intii shirkan uusan bilaaban dhowr bilood laba bilood ka horba habeen walba page-kan waa uu soo qaadanayay fiidiyoyada Cali Daacun oo ku dhegan markaas Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynihii maamulkii Puntland. markaas Cali Daacun nin wanaagsan buu ahaa marba hadduu Siciid Cabdullaahi Dani iyo maamulkii Puntland iyo beeshii Majeerteen uu markaa caynayo Cali Daacun waa la wataa oo waa nin wanaagsan. balse markii uu laascaanood yimid oo uu runtii ka hadlay iyo dhibaatada meesha taalla gebi ahaanba markaa waa laga soo horjeestay oo beeshii oo dhanba waxaad u malaysaa dulmigan markaa inay isku taageerayaan. oo hadda hadalka halkaas maxaa ku qoran Cali Daacun waxaa la sheegay markii uu imanayay magaalada laascaanood caasimadda maamulkii waqooyi bari in uu Somaliland markaa soo maray oo uu magaalada Hargeysa ka soo degay oo Cabdiraxmaan Ciro markaa is arkeen oo foosto la soo riixay uu ahaa Cali Daacun. waa nonsense, waa wax aan suuragal ahayn. waa caqli xumada iyo dullinimada markaa dadka wax magaratada ah looga shaqaysto ee madaxa looga shubo. waana xaqiiq iyo waxay u tahay tusaale waa xoogga iyo dulmiga markaa ka socda magaalada laascaanood ee dadka markaa lagu hayo. bal waxaynu rabnaa markaa inaynu galno Cali Daacun iyo fiidiyowgiisa markaa intaanoo dhibaata iyo dagaalka markaa loogu soo qaaday oo waxaanoo xumaani ay ka timid. ilaan Cali Daacun nin dad gardarro ku caynaya maahan siyaasaddu meeshii ay ka qaldan tahay iyo wixii halaysan markaa ayaa u sheegaya. marka meeshii waxaa taalla magaalada laascaanood haddii ay wax qaldan yihiinba yaan laga hadlin oo markaa aan la sheegin. oo meeshii maxaa lagu qabanaya marka haddii aan xaqiiba laga hadlayn maxaa la samaynayaa. bal waa fiidiyowgan Cali Daacun wuxuu dhahay Xasan Sheekh Maxamuud balaas Firdhiye balaas Timcadde balaas Bidhaan geesood isimada qaarkood inay hayaan natiijada doorashooyinka awgeed waa inaad ummadda ka xasan bacdkii. yacni isimadii dhulbaante qaarkood oo dabcan dee garaad ina Ismaaciil baa ka mida garaad ina Saleebaan baa ka mida dhowr garaad aduu ilaa 3-4 baa meeshii ku jira iyo raggaas madaxda ah oo meeshaan ah ina geesoodkaas isaguna markaa warsingeli ah waxa uu ka soo tagay kan kale foosada la soo riixay ee isaguna abwaanka adigu waa ay badan yihiin. waa inta Xasan Sheekh Maxamuud u shaqaysa. maxaa sababay markaa ilaan hadda meeshii waa lagu wada dhan yahay dhulbaante kaliya maahanba inta uu soo qaatay waa dhulbaante iyo warsingeli ayaa meeshii ku wada jira. oo waxa u kow markaa raggaas oo ambassadorka meesha loo soo diray ee la rabo Puntland markaa in lagula dagaalamo
ووزير علي حوش هذا ما دد كان قلبض مدودة هاي قلبض شبان هاي نعيب يحمان تكون بوحده أيوة دارود نعيبنات تكون تاجي وهشت نعيب تكون تاجي وحسن شيخ محمود مركا قوة نيكنيا علي داعون دجال أيام مركا لو صور قاري ومحضر حق وجوش يجسا أما تكون تجوش يجسا أيام ولا دجال لما يا وضل بيجي قبل دي فردوس مركا كل عيه وكله أي نوعين وحي كده عناشة على داعون يفيدوا يجسا نسلا أربنا السبب ترى ولا دجال لما مدحوين حس الشيخ محمود واجد بلاس فردية بلاس علي حوش بلاس لوم ويان كردو البحانتي حمر كيبي قشحن وحكا اوغان واجد حلقة عنوان كيدو واكا لوم ooyaanka beeshii dhulbaanta ka soo jeeda iyagu wiilasha xamar laga soo dirsaday waa hadal uu markaa garaadka laftiisa garaad u hadlayay gabadhii Firdawsa habeen hore ka hadlay insha Allah hadii waqti uu inoo saamaxo waa aynu ku soo darsan doonaa waa ragga fidnada markaa ka wada maamulkii waqooyi bari ee raba meeshan inuu dagaal ka dhaco ka bacdina madaxweyne Xasan Sheekh uu soo magacawday iyo dad u shaqeeyay kaliya meeshii in magacooda la isticmaalo waa hagaag maalintii aan imi laascaano يمانت كستو حاون إيقالا كل ماي اللهم لك الحمد ولك الشكر إلى ما نتن وحائم مغضى دور شو أي نتيجة دي قرن لأيهين حسن شيخ فردية علي حوش تبع عدي بدان الله محا ماشي وحصوب بحبحايا ولا الدنيا نكي نورو وحول بعض كيسا يعني تم عدي بدان كان إيو شلي مكي لاسعانو دقين تبسعوتي مقادة لاسعانو شعب كودي أما قرادو أما السياسيين أما باشي دول بهانتو نوحا أي كو عين ترين أوني من كان لوها يستي وهرقلت داد كودي كسو هرشيستي أو ليقي داد كودا كفرحايا ما أنتنا خلق ماشي يقو مركا قعانتو كو هيا وإيجي marka dulmiga meesha ka socda horgalkii Hargeysa shalay ka yimid ee lula dagaalamay dhulbaanta la dagaalamay maanta waxa uu bedelay waa horgal kale oo fidiyay iyo bidaankan iyo timacada iyo ay horkacayaan oo iyagu ilaa horgalnimo kale ayaa dhinacanba ka dilaacday oo fuustadan la soo riixay iyo dadkii la isku diray iyo hawshan socota iyo boobka dhan ee dhacaya waa horgallo marka magaaladii Muqdisho fuusta laga soo riixay waa hagaag meesha la gaar aynu arkaynaa iyo meesha ay كتب دحض أيوة نحرستي وجيسو ديرادان ومسكينة وأمو خلالة سبب لقرنكا وحي حارانكو بلوضا بالنعاس نعم بين ما فريق مدح دغميت كتاقيرسن وهي سياسيين تتاقيرسن أي وزارة تاقيرسن وابكو بقول كي بس جيتن بابو شقيدك وحالة شوقة حلي عاد مدك حشوطها حشود ما جرو waa ay is soo qaawiyeen dharkii ay soo dhigteen waxa ay rabaan meel walba in marka xoog iyo dulmi marka ay wax ku qaataan ama dadkii xoog lagu maqooniyo marka firdiyahaas aynu u jeedno ee gabadhii Firdaws ahayd ee inta ay dibadda uga timid iyadu dadkeeda ama reerkeeda ama walaalaheed ama adeeradeed ama ilma adeeradeed ragga dhaawacmay caawinaysay ee raashinka afka ugu guraysay ee wax walba sameeynay aynu marxaati ka nahay oo maray gaalkacay tagto maray garoowa tagto mar ay gabdhihii harti iyo daarood ay dibadda la hadasho wax walba iyadu sameeynay Firdiya waa ninka gabadha guri ka soo galay kuwan kale ee marka la shaqeynaya ama horgal kale siyaasiyiin ha noqdaan waa wax la isaga marka la mida oo aan marka maxaan dhihi karnaa waa nin dadkiisa iyo marka garanaya maamulkiisa loo soo baabay ee loo soo dhintay waana dhibaatada taagan bal hadda fiidiyogan ila fiiri waa garaadkaas oo ka xanaaqsan gabadhii Firdaws marka waxa lagu sameeyay oo arinka dadkan xamar marka laga soo dirsaday ka hadlaya afar wiil xamar ka yimi oo raba inay ku noolaadaan ummadda masiirkooda oo si qadan ugu noolaadaan wallahi inay noo saxsaxay ma qaan Firdaws cashire haday tan maamuus ka weyno ma garanayo meesha ka socota inay dhab tahay oo ay sanbeen ahayn oo ay xaqiiq tahay horta tan baa idinka marxaati ah ninkii Firdiya ahaana inay ka go'an tahay meeshan in la boobo oo la dhaco oo wax walba la sameeyo ama lagu kala tago oo ay xabadi ka dhacdo isna nin marka magaalada Muqdisho fadhiya oo magac madaxweyne ku fadhiya iyo dadkii meeshan lagu doortay oo iyaga marka Muqdisho magacooda lagu isticmaalayo inay noqoto sida
hirshabelle iyo waxaasoo kale camal waxaa loo socdaaba waa intaas keliya wax kale lagama rabo haddii markaa maamul uu samaysmayana waxaa la rabaa in markaa mid uu noqdo lagula dagaalamo beeshii daarood beeshii harti sida hadda jubbaland markaa dagaalka loogu qaaday oo puntlandna markaa dagaal loogu qaado haddii aysan taasi shaqaynayn dee dadkan dhan ee markaa dooranba waa la qaadanaya oo muqdisho ay markaa kasoo hadlayaan wixii la rabo iyagoo markaa meesha ka samaynaya waa dulmiga saxda ah ee markaa meesha ka socda ma ogolow ama ha ogolaan cali daacuun waxaa lagula dagaalamayaana waa maxaad xaqa u sheegaysaa oo aad runta u sheegaysaa waa hagaag waxaa la joogaa xilli aad ilaahay ka baqdaan waxaa la joogaa xilli dadkan aad qoraxdan ka dareerisaan dadka ka yimi maakhir magaalada hoy kuma laha lacagna maanay sidan erganimadiina hodheeladii waad ka saarteen inaa lillahi bacadkay duban yihiin waa reerkii warsangeli ee awalba lagu ceynayay cunto ayay soo doonteen oo maantana markaa xaaladdu taagan tahay hoteeladii ama loojajkii ama albeerkooyinkii ay deganaayeen ayaa dibadda looga soo saaray meelihii ay wax ka cunaayeen waa laga xirtay yacni bacad iyo gaajo ayaa isugu darsantay waa raggii wafdiga ahaa raggii ergada ahaa iyo wixii socday oo dee awalba si xaaraanay ku yimaadeen haddana xaaraantiiba kusoo ifbaxday oo bacad iyo waxaa isugu darsantay kharash la-aan markaas bannaanka ay soo istaageen waana jaaniska oo markaa firdhiya raba inuu uga faa'iidaysto oo uu dhaho ama ogolaada dee ama meesha ku kala yaaca oo lacag ha laydin qabsado meeshii balaaye iyo baaba noocaasa ayaa ka socda waa ceeb maalintii alla keena oo markaa kasoo baxsa waxaan oo dhan marka maxaa ka daran war meeshii in dagaal markaa la isku qaado ayaa anu kaba baqayaa oo lagu kala tago oo lagu kala yaaco ama dhimasho iyo xabadba ay ka dhacday meeshii waana firdhiye awgiis waxaas oo taagan isagu meeshan ama aan madaxweyne ka noqdo ama ha lagu kala tago oo dagaala ka dhaco waa cadkanoo ku cunay ama ku ciideey iyo 100 munaafaqo markaa barihii bulshada u jooga oo isaga u shaqaynaya oo lacag ku qaata meeshan waa loo wada siman yahay qofkii ilaahay calafkiisa uga dhigayo ha noqdo calafkiisa la iskuma haysto kii la doortana dee markaa si sharciya loo soo doortay balse sharci darrada sharciga laga tallaabsaday boobka dhaca iyo waxa la wado ayaan cidina markaa aysan qaadanayn oo nin walbaba uu dagaal ka xigaa iyo inuusan ogolaan hal iyo laba aynu kasii dhegaysano cali daacuun ka dulqaada oo intaad wax soo saartaan ilan weydi kan habeenna liisax jeexjeexaya subax liis qoraya habeen liis jeexjeexaya wax nagaga keen qarsoon lama arko war wuxuu sameeya oo dadka ka kaxaya bacadka cali daacuun halkaasaan kusoo gabagabaynayaa habeenkii liiska waa la jeexjeexaa baa u dhahay oo liis kale ayaa markaa lasoo diyaarsadaa subaxdiina liis cusub ayaa la qortaa kaas cusub markii uu habeenkii qancin waayo oo uu shaki ka galo waa la jeexjeexaa subaxdii ayaa haddana mid kale markaa la soo qortaa waa yacni meel markeeda horeba dulmi iyo xaaraan lagu heshiiyey iyo dadka in la boobo oo la dulmiyo meeshii marka cadaalad darre iyo dulmi lagu heshiiyey dee xalaal miyay ka imanaysaa ilaa labadii xaqdarro ku heshiisa xaqa ayay ku dirraan tii ayaa marka socota oo meesha hawshina waxay u dhammaan leedahay dee waa arrinkaa markaas aynu u jeedno ee meeshii ka socda marka dadka iyagu ku boojaysan ee aaminsan firdhiya ayaa wax soo qabtay soo dagaalamay oo soo halgamay waa firdhiyaha halkaa aynuga jeedno ee u eg markaa nimankii dilaaleyda ahaa ama dilaalka ahaa ee bakhaarada iyo gawaarida iyo raashinka u kala dilaali jiray ama ariga iyo geelka iyo waxaas dilaalku markaa u kala ahaa waakaas aynu halkaa u jeedno ninkaasaa dad ay waxay rabaa inay ka dhaadhiciyaan dadkii kaasaa soo halgamay dilaalka halkaa fadhiya ayaa soo halgamay ayaa la rabaa in dadkii markaa laga dhaadhiciyo marka ama ku qanac ama iska daa firdhiya waa dilaalkaas aynu u jeedno waxna aan ka nixin waxna aan cid u ogolayn oo wax walbuu arka isagu markaa raba inuu kaligiis dhaco waa qalalaasaha iyo dhibaatada markaa maanta magaalada laascaanood ka taagan waa ninka ka dambeeya ama ku ogolow ama ha ku ogolaan firdhiya haddii uu u soo baxo ninkaasi waa ninkii dadka iska horkeeni lahaa ee maamulkanna baabi'in lahaa ama maalintii markaa ugu dambeysay ay noqon lahayd oo lagu kala tegi lahaa qofkii raba ha qaato se qofka dadkan hagi kara oo dowladdan iyo maamulkan dhisi kara ayaa meeshaan looga baahan yahay oo aan munaafiq ahayn siyaasad meel kalena markaa aan ku xirnayn videogan halkaasaan kusoo gabagabaynaya intaan sugu imaan doona video lamida iyo wixii cusub ee markaa kusoo kordha insha allah waxaa idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu